Ma garanaysaa micnaha jacaylka sayse ugu dhaqmaan dhalinyarada maanta ku dhawaad boqolkiiba 75 waxa ila muuqda dadka Soomaalidu in ay yihiin dad aan fahansaneyn micnaha jacaylka. Waxaad arkaysaa dad isqabaan 30 sano haddana weligooda aan isu dhoola cadaynin. Markuu xaaskiisa u yeedhay wuxuu dhahaa warartii inay hebel ahayd igu yeedha ama caruurtiisu ku dhaha orday hooyada igu yeedha. Weli ma arkaysa oo kalimad jilicsan afkiisa ka soo baxayso misane dhahaya xaaskaygi mee ama xaaskaygi igu yeedha. Maxaan ku tilmaanaa midaas? Gabadha marka aad weydiiso saygeeda waxay ku dhahaysaa wadaadkii weligeed ma maqlaysi iyadoo leh gacaliyahayga ama xaajigayga maxaa diidaya toloma muslimnimadeena daciif noqonayso haddii aan kelmado si dabacsan ku hadli weyno. War jacaylku waa wax soo jireena, waa wax taariikh weyn leh. Jacaylka Soomaalidu inay ku dhaqanto ayaan mar kasta ku dhiirigelinayaa, waayo noloshu waa jacayl. Jacaylku waa nolol. Hadaa tahay qof muslima aadna haysato jacayl, waxaan aaminsanahay wax kaa dhiman oo dunida ah inuu yar yahay. Marka koobaad ahow qof Ilaahay ku xiran, marba Ilaahay haddaad ku xiran tahay waxaa kuu fududaanaysa inaad barato xaqa uu kuu leeyahay qofkaaneeto. Xaaskaada 30 sano kula soo nooleed ma qiyaasi kartaa xalka ay kugu leedahay. Markii laga yimaado waalidiintaada waa qofka kuugu dhow, hooyada macaan qofka kuu soo xiga waa xaaskaada. Haddana saasay tahay Soomaalidu waxay ula dhaqmaan si aan munaasab ahayn. Waxaad moodaa inay ka dhigtaan sida adoomada oo kale ay guriga u fadhido kaliya ay noqoto warshad u soo saaraysa carruurta oo kaliya inay tahay warshad u dhalaysa. Saasoo ay u tahay producer guriga u dhex fadhiya. Maanta shirkad haddii aad leedahay shirkadaaba dhaanta iyo warshada because of ninku uu jecel yahay warshadiisa, waayo waa qayb ka mid ah hantidiisa. Laakiin maxaa diiday dumarkeena jacaylna dareensiino? Maalinkii aad soo guursatay maxaad ku lahayd waan ku jecelahay, waan ku dhimanayaa, noloshayda tahay. Haddana kadib markaad guriga geysatay maxaa ku tiraahdaa? Wallaahi waa arrin la yaab ugu noqotay. Soomaalida dhaqamadeedu aad bay kala duwan yihiin. Inkastoo ay qalad tahay inaan dhaqankeena wanaagsan wax ka sheego, laakiin mar kasta waxaan ku dhiirigelinayaa war inaad dumarka jacayl dareensiisaan. Qofta hal hadal oo dabacsan baa laga yaabaa 10 sano ee soo socota inuu ku faraxsanaato. Waa hal hadal oo afkaaga ka soo baxay. Xaqul waxa ah dumarka qaar in aynan rabin in aad hanti siiso, in aad wax kala siiso oo kaliya rabaan markasta farxadaada. Haddana saasoo tahay ma dareeno. Waxaan aad uga xumahay, waan aad uga murugooda markasta oo arkana ay ilmo igu soo istaagtaa. Marka aan arko hooyo Soomaaliyeed taas oo xaajigeed u wacayo ama uu dhahayo nahayna hebelay u dhawaaqayo, wallaahi billaahi ilmo igu soo istaagta because of qofkan xaq buu ku leeyahay ku dhawaad 70 sano hadduu rabo la noolaanaya. Soomaalida waxaan kula talin lahaa markasta jacaylka inay ku dhaqmaan, inay micnihiisa ogaadaan, inay ahaadaan qof dadka go'aanasho leh, dad firfircooni leh, dad jacaylku wuxuu yahay yaqaana. Abid haddii hadda taariikhda Soomaalida lagaaga sheekeeyo dadkeenii hore jacaylka way yaqaanin, way ku dhaqmi jireen, waa la is ixtiraami jiray. Dumarka xataa markii la arko jidadka looga leexan jiray. Waxay ahaayeen dad la ixtiraamo, waxay ahaayeen dad sharaf leh, waxay ahaayeen dad aan ahayn sida maanta ay yihiin because of maanta warshado kaliya tan ka dhiganaa. War gabadha marka aad soo guursanaysa aad beenta u sheegayso aad leedahay waan ku jeclahay, waxaa ila qurux badan inaad iska dayso, waayo waxay aaminaysaa inaad jeceshahay, way ku soo raacaysaa gurigaaga imanaysaa kadibna warshadaad ka dhiganaysaa. Subxaanallah, wallaahi arrinkaas waa arrin aad looga xumaado. Qisadan ma dhahayo waa qiso halka ka dhacday, waayo every some is now that ku kalsoonaada xaaskiina, ku kalsoonaada naftiina, noqda kuwo markasta difaacda jacaylkooda oo ahaada oo dhaha meel kastoo joogto. Haddaad tiraahdo maanta adoo asxaabtaada dhex fadhiya xaaskayga waan jeclahay maxaa dhib ah, way ku farxayaan, qofna kama naxayo. Laakiin Soomaalida saad ogtahay ninkii dhaha xaaskayga waan jeclahay waa la soo wada fiirinaa, waa la yaabayaa, dadkoo dhan dhagahay taagayaan, muxuu ka wadaaba la isdhahayaa. Wallaahi I'm sorry. Waxaan kula talin lahaa dhalinyarada maanta intii hore tagtay way tagtay inay jacaylka suu yahay ugu dhaqmaan, in aysan dadka been u sheegin, ku kalsoonaadaan naftooda, marnaba aynan ciqaabin jacaylkooda ama noloshooda dembi aynan lahayn aynan dusha ka saarin. Markaad xaaskaada magaceeda ka xishoonayso inaad sheegto maxaan kuu tilmaamaa?